إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي نحرستي جناها كورابيو فرحية وهيد هويديد سقل قباد وكمد هيد ورباهنتا قبل كتوغدير waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu samri iyo imaan ka siiyo eheladii qaraabadii caruurteedii iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland ee ka baxday iyadana uu ku casumo jannooyinkiisa dambigeedana dhaafo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan taxsiin uga dirayaa Farxiyo Cabdilaahi Yaasiin oo ku geeriyotay magaalada Hargeysa isla markaana kamid ah bahda hooyooyinka warbaahinta gobolka Togdheer waxaan halkan taxsiin tiiraanyada uga dirayaa eheladii qaraabadii ka baxday gaar ahaan سجل يوسف إبراهيم سجل جواد أو كمدا هالودنا ده ريال تي في أو هوية هاي يضمان أنت كلاي ولا له يضمان تود وحن لي هاي إن الله وإنا إليه راجعون سمري إيمان إلهي أنا قصير ضمان تود إن لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت حملت شليت مقالة هرجيسة كوجيريوتي ماما فرحية عبد الله ياسين وهيد هوية ده شيء وري سجل جواد أو كمدا وربعينته قبل كتقدر سيجارنا وقت سنة بهذا التلفزيون كهريال waxaan tacsuud dirayaa guud ahaan qoyskii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay maamadaasi waxaan si gaar ah ugu tacsiideynayaa walaashay Sagal Gobaad oo aan isku TV ka hawlgalinay telefishinka Horyal TV aan ka wada shaqeynay waxaan iyadana alla weydiinaynaa inuu jannatu firdawsa ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxaanu tacsiid tiiraan la uga diranaa anagoo ah bahda warbaahinta gobolka Togdheer wariye Sagal Gobaad oo magaalada Hargeysa hooyadeed ku dhimatay Farxiyo Cabdilaahi Yaasiin maalintii shalay ilaahay waxaanu ka baryanaa inuu samriyo imaan saadiqa ka siiyo ehelkii asxaabtii iyo qaranka Soomaaliland ay ka baxday hooyadaas oo kamid ahayd hooyooyinka warbaahinta iyadana janno firdawsi ku casuumo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsiid tiiraanya looga diranaa walaashay Sagal Gobaad iyo caruurtay walaalaha ay dhamaantoodba eheladii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka geeriyootay hooyo Farxiyo ilaahay samriye iman haynaga siiyo dhamaanteen iyadana naxariistii janno ilaahay ha siiyo ilaahay qabriga ha waasiciyo ilaahay su'aalaha qabriga ha fuudeeyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeridu waa xaq waxaanu halkan tacsiin uga diraynaa isla markaasina aanu murugada la qaybsanaynaa walaashay Sagal Gobaad oo habeenkii xalay ahaa hooyadeed ay ku geeriyootay magaalada Hargeysa dhammaan qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxday hooyo Farxiyo Cabdilaahi waxaan u rajaynaynaa samriye imaan in Ilaahay ka siin doono guud ahaan bahda warbaahintana waxaan u diranaa tacsiin si guud Ilaahay naxariista janno firdawsaha ka waraabiyo hooyo Farxiyo ilaahu wa inna ilayhi raaji'uun anagoo kamid ah bahda warbaahinta gobolka Togdheer waxaan kan tacsiin tiiraan lagu diranaa hooyo Farxiyo Cabdilaahi Yaasiin oo ahayd wariye Sagal Gobaad hooyadeed waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo martida jecel yahay qoyskii iyo qaraabadii ka geeriyootay hooyaduna samri iimaan saadiqa ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun habeenkii xalay u baahayd markiina loo soo sheegay geerida maama Farxiyo Cabdilaahi oo ku geeriyootay magaalada Hargeysa ahna hooyada dhashay Sagal Gobaad oo kamid ah bahda warbaahinta gobolka Togdheer ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay jannatul firdawsa ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadiina uu ilaahay ka siiyo samriye iimaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsiid tiiraanya la uga diraynaa qoyskii qaraabadii iyo guud ahaanba ummadii ay ka baxday Farxiyo Cabdilaahi Yaasiin oo ahayd wariye Sagal hooyadeed waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannooyinkiisa ha ku abaalmariyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun annagoo ah bahda warbaahinta gobolka Togdheer isku duban waxaan maanta halkan tacsiid uga diraynaa hooyo Farxiyo Yaasiin oo ahayd Sagal Gobaad hooyadeed oo ka tirsan bahda warbaahinta gobolka Togdheer waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto maamada naxariista jannada ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsiin uga dirayaa walaashay wariye Sagal Gobaad oo hooyadeed Farxiyo Cabdilaahi Yaasiin ku geeriyootay magaalada Hargeysa qof kasta geerida uu dhadhaminayaa inaguna garan mayno xitaa goor layna qabanayo in ku xukumanahay marka waa la wada dhimanay geeriduna waa xaq waxaan tacsiid dirayaa kale ehelkii iyo qaraabadii waxaan leeyahay ilaahay samriye iimaan haynaga siiyo dhamaanteedba iyo ummadda islaamaba wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto inagana ilaahay ha nooga dabaxnaa